dadka qaarkood waxaa ku dhacda werwer badan oo ay markaa ka werwarayaan mustaqbalka taasina waxa weeye ma fiicna maa madaa faat waalmu'ammalu ghaybun walaka asaacatu alatii anta fiiha wixii tegay socde waxa soo socdana inaad gaadhi doonto ma ogido waa hayb waxaa laga yaabaa mustaqbalka qofkaas inuu ka fikerayo maxaad noqon doontaa maxaad samayn doontaa maxaad ku dambayn doontaa yacni marka waxa weeye umuurahaas inuu aad isku mashquulinayo taasi waxay ka dayacaysaa wakhtiga uu joogo inuu ka faa'iidaysto walaka asaacatu alatii anta fiiha wakhtigaa soo socda waa kaa daahan yahay ma ogid inaad gaadhi doonto saacaddan aad ku sugan tahay iyo wakhtigan aad joogto iyo ammintan aad joogto ka faa'iidayso oo wax ku anfacaya fi dunya waalaakhira kaga faa'iidayso wixii kaa tegay ee ku dhaafay ku islaaxi towbad iyo istikfaar wakhtigaad joogtana ka faa'iidaysi aad kaga faa'iidaysanayso waxa ku anfacaya yacni markaa la kaalay wakhtiga soo socdana ilahay u tala saaray adduunyadana wakhtiga aynu joogaynaa waa wakhti kooban waa cimri xadidan waa maalmo tirsan arsaaqdeenna socodkeenna maalmaheenna neefsigeenna waxoo dhan baa tirsan laakiin noloshan waxaa ka dambaysa nolol kalea ka dambayso abadi ah nolosha aakhiro wixii ka anfacaya ee nolol wanaagsan inaad ku noolaato kuu sababaya ku dadaal intaad markaa noloshan adduunyada joogto maalmahan kooban kaga faa'iidayso fursadda dhito wanaagsan dhigo yacni camal wanaagsan la kaalay ku dadaal yacni sidii aad markaa waxa weeye nolosha abadiga ah liibaan iyo sacaado iyo falaax iyo nabadgelyo aad ugu noolaan lahayd taasina waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi iimaan iyo camal ayay u baahan tahay laakiin qofku werwer inuu markaa ku mashquulo oo ka werwaraayo mustaqbalka noloshiisa iyo wuxuu ku dambaynayay adduunye ahaan iyo waxyaalaha noocaasa iyo maxaad markaa xaaladdaadu noqonaysaa iyo ajashaadu waa goorma iyo waxyaalaha uu ka werwaraayo sida dad badan markaa ku dhacda dabeedna xanuun ay ku noqoto tan noocaasa waa inu iska ilaaliyaa